السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي عاديات بان دي سلامية maanta halkan waxaan idinku soo gudbinayaa video waxoogaa ka duwan fiidiyoyadii aan soo gelin jiray marka kan waxa weeyaan wuxuu ku saabsan yahay shay aad iyo aad muhiim u ah sidii aad u secure garan lahayd oo amnigiisa u sugi lahayd computerkaaga laptopkaaga hadii weli waxyaabo oo qiimo leh ay kuugu jiraan ama personal ama waxa doonto ama aad company u shaqeynayso ama ay kuugu jiraan so waxaa jira sidaad ogtihiinba ama password baad ku xiran kartaa ama pin ama picture passwordka badanka dadku kuma xidhaan balse laakiin waa shay aad iyo aad fun u ah waa cool inay dadku aqoonin baa laga yaabaa inay dadku ayna ma garanaysaa ay ka wahsanayaan sidii loo setup garan lahaa inkastay ay same un tahay sida kuwa kalaba la sameynayo so maanta waxaan idin tusayaa sidii aad saddexdoodaba aad doonto isku mar aad u wada isticmaal lahayd aad u setup garan lahayd aad u remove garan lahayd iyo midka ugu fiican inaad isticmaashid securitygaagi so hadda aan fiirino halkan calaamadan windowska click baad siinaysaa settingska aad click siinaysaa settingka then accountska click sign in optionska waxaan hadda isticmaalayno waa Windows 10 so haddii aad isticmaalaysid Windows 7 waa inaad niyadda ku haysaa differencega u dhexeeya labadaas marka hadda password baa ku xiran that's why uu change u soo qorayo marka passwordka haddaad rabtid inaad bedesho waad change garan kartaa pinka aad buu leeyahay ku dar iyo picture passwordka sidoo kale so pinkan imika ku darayna passwordka ku qoraysaa dan waxa ku soo baxaya new pin cusub baad gelinaysaa haddaad rabto inaad letters iyo ku isticmaasho symbol sida dollar sign oo kale waxaad halkaasaad click siinaysaa haddii kaleetana waad ka daynaysaa number keliyaad isticmaalaysaa sida adigu kolba aad rabto okay then saas nimaka ku setup garaynay picture passwordka nimakana ku daraynaa picture passwordku really waa fun haddaad rabto kuwa windowska isticmaalaysaa haddaad doonto waxaad isticmaalaysaa sawiraad adigu rabto marka choose picture baad leedahay so picture baad kasoo dooranaysaa faylashaada ama picturadaada then haddaad rabto inaad bedesho pictureka markuu halkan kasoo muuqdo choose new baad leedahay picture haddaad doonto inaad use this picture baad leedahay haddaad rabto inaad picturekan oo kale inaad isticmaasho okay marka waxaa la rabaa xariiqima hadduu circle yahay iyo hadduu hal xariiqin tahay inaad kuwaasun inaad isku si inaad ugu celceliso oonad kolba dhinacaanad dad xariiqin dhinaca ujeeda haddaad samayso inaad marka labada xariiqin hoos ujeeda inaanad samayn inaad yacni inay isku hal mid ahaataan ma garanaysaa inaad saasoo kale inaad ugu isticmaasho haddii kaleeto khalad buu kusoo qoraya markaanu halkaasaan ka bilaabayaa okay sidaad imika ba aragtaan one more marka hadda halkan wuxuu kusoo qorayaa confirm inaad xaqiijiso weeyaan wixii aan hadda geliyey inay ismatch gareeyaan okay congratulations successful baa hadda ayaad u create garaysa buu leeyahay picture passwordka marka waxaan leenahay finish okay saddexdoodiiba waa kuwa hadda waxaan sameynaynaa waan fiirinaynaa waan close garaynaynaa waxa aan soo fiirinaynaa sida ay tahay sidii aad banaanka uga soo geli lahayd baan imaka fiirinaynaa so aan xidhno kan okay so aan xidhno kan okay so haddaba aad u jeedaan waka picture passwordka so waxaad taaban kartaa sign in options waxaa kuu soo baxay password waxaa kuu soo baxay pin iyo picture so midkaad doontaa dooran kartaa waxaad ku dhuman kartaa passwordka haddaad doonto pinka haddaad doonto pictureka marka hadda imakaan fiirino pictureka sidii aan markii dhaweyd calaamadda aan ugu qoray waa inaan haddana aan ugu qoraa haddii kaleeto ma yeelayo haddaan hadda imika saasaan uqora soma
dynamic sida hadaan dhaho wax yar aan daqaldo wuxuu soo qoraya incorrect. So I have to inaan sidii aan u saano gareeyay inaan hadana imakan ugu qoro. So one more. Okay. ku xidhatid password aad iyo aad strong u ah inaad ku xidhatid bay aad u fiican tahay. wax kasta oo security wuxuu ka bilowdaa waa password strong oo 8 xaraf iyo wax ka badana oo ku jira letter iyo symbol iyo saas. marka hadda waxaan remove gareynaa pinka. wuxuu ku weydiinayaa passwordka inaad confirm gareyso. Okay, saasaan kaga tuurnay pinki. picture-kana aan remove gareyno. picture-ka isagu wuxuu waa remove isagu kuma weydiinayo inaad passwordka geliso. marka asxaabteena qaaliga ah aad iyo aad baan idin salaamayaa. subscribe gareeya waxa la wixii su'aalaad qabtaan IT ama ku saabsan sidii aad u secure garan lahaydeen telefoonadiina ama laptop-yadiina ama taas kale inaad ila soo socodsiisaan commentiga ku soo qortaan aniguna insha Allah waan idin soo jawaabi doonaa video baan idin soo duubi doonaa. aad iyo aad baan idin salaamayaa.